barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan ayaa saaka kormeer ku tagay laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Sanaag waxaana barasaabka kormeerkiisani ku weelinaya taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag barasaabka xigeenka gobolka Sanaag iyo waliba xogayaha gobolka Sanaag waxaana barasaabku mid u galay xafiisyada laamaha kala duwan ee gobolka Sanaag waxaana warbixin ka siiyay xafiisyadaasi maamulayaasha iyo waliba isuduwayaasha ka howlgala xafiisyada laamaha kala duwan ee gobolka Sanaag intaasi kadibna markii uu kormeerka barasaabku soo dhamaaday waxa uu barasaabku qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska maamulka ee gobolka Sanaag waxaana barasaabku digniino kala duwan u diray isuduwayaal aan xafiisyada u shaqeynaan xilligii kormeerka barasaabku ku laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Sanaag saaka waxaanu kormeer ku bilownay xafiisyadii dawladda ee gobolka degmada Ceerkaba gudaheega ku jiray xafiisyadii iskuduwayaasha runtii kormeerkaasi wuxuu ahaa mid aan ugu guurgalaynay shaqooyinku sida ay u socdaan iyo isbarasho inaan soo baranno xafiisyadu isduwayaashooda shaqaalahooda iyo nin walba sida uu shaqeeyo intii saaka aanu ka gaadhnay waxay ahayd inaanu si nin walba warbixin naga siiyay wasaaraddiisii iyo sida u shaqeyso waxaan jiray xafiisyo ay ka maqnaayeen isduwayaashoodii oo xidhan ninka mas'uulka ah ee qarankan mas'uulka uga ah inuu dadka iyo bulshada u shaqeeyo ee xafiiskiisu xidhan yahay taa waxaa loo arkayaa inaanu diyaar u ahayn inuu shaqeeyo inuu diyaar u ahayn qarankan u shaqeeyo inaanu diyaar u ahayn inuu u shaqeeyo bulshada wixii loo soo igmaday inuu qabto inaanu fahmin baan halkaa maxaan ku rahdaa nooga muuqata isku duwaha aan shaqeynaynin inaan shaqadiisa ku filaynaa dee wasaaraddiisaanu la xidhiidhaynaa waxaanu leenahay cid shaqadan hanan karta ha la keeno xafiisyo xidhan oo shaqaalahoodii ay maqan yihiin qofna aanu ka joogin baanu soo maray saaka waxaan leenahay waa digniinta koowaad xafiiska noocaa uu isgaranayaa uu isog yahay maanta waxaan uga dhigaynaa digniin waxaan leenahay xafiisyada iyo isduwayaasha kale iyo kuwa aan weli tegin aan tegi doonaba horeyna isduwayaasha waan uga ballanay shirkeena isduwayaasha Adnan Abdurrashid Ali telefishinka caalamiga ee Kalsan TV Erigabo